gaarigan oo ah nooca matabiishka iyo ciidamada ammaanka maamulka Puntland ka soo qabteen magaalo xeebeedka Garacad ee gobolka Mudug asagii qofkii dhacay waxayna ku wareejiyeen ciidamada ammaanka ee maamulka Galmudug ee magaalada Gaalkacyo waxaana gaarigan qofkii dhaca geystaba la wareegay taliye ku-xigeenka saldhigga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee dhinaca Galmudug taliyaha saldhigga magaalada Jariban ee gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in dadaal dheer oo ay bixiyeen kadib ay ku guuleysteen soo qabashada gaarigan iyo qofkii soo dhacay waxaan gaariga mootabiishka iyo maxbuus watay oo daroolka ah ku wareejinaynaa taliyaha saldhigga Galmudug ee booliska Galmudug kaas oo markii horena ka soo dhacay Galmudug reer Galmudug aha kadibna oo la soo galay Puntland waxa ciidanka booliska degmada Jariban ay ka soo qabteen deegaanka Garacad shalay isla xalayna waa la soo gudbiyay haddana waxaan ku wareejinaynaa taliyihii saldhigga waxaa la doonayaa marka sidaas in loo wada shaqeeyo oo boolisku meel uu joogaba uu isugu xiraado oo wixii xagga galaana ay si degdeg ah u soo wareegaan wixii xagga iyaga soo galaana annaga waa naga go'aantay waa wareegayaan laba xidigle Axmed Cabdi Cilmi Dhamuuki oo ah taliye ku-xigeenka saldhigga magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug ayaa ciidamada ammaanka maamulka Puntland uga mahadcelisay soo qabashada gaarigan iyo ruuxii dhaca geystay waa mahadsan yahay walaalkay taraafika saas in loo wada shaqeeyo booliska iyo amnigu dhammaan way ku mahadsan yihiin waana kala wareegay maxbuuska iyo gaarigaas wada shaqeyn wanaagsan sidaas bayna noo ahaanaysa kuna wada shaqeyn doonaa haddii la haydo ugu dambeyntii taliyaha ciidamada booliska isku dhafka ee ku sugan gudaha magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug ayaa ka hadlay goobta wareejinta ciidanka booliska mar kasta iska warqabkaas iyo isku xirnaantaas baa laga rabaa qofka dambiilaha meelna ku baxsan haddii ciidanka booliska isku xiran yahay dambiile meelna ku baxsan maya ama ha ahaatee Galmudug ama Puntland ha ahaato marka mar kasta shacabkuna saas ay wada shaqeynayaan ciidankuna haday shacabku waxay ku dayanayaan wada shaqeynta ciidanka mar walba u jeedaan marka waxa laga rabaa amniga inaan xagsano la dirno wax kasta oo dhibaato keenaya wax kasta oo amni darro keenaya wax kasta oo nabadgelyada jabinaya aad baa u mahadsantihiin shacabkana waxaan ka codsanayaa ciidamadu waa inay shaqeynayaan diyaar bay waxay u yihiin mar kasta inay inii shaqeeyaan laakiin waxa la in ka rabaa idinka shacabka ina ciidankii xogta soo siisaan lambaradii ciidanka booliska aad soo siisaan la soo xiriirtaan oo aad soo siistaan wixii xog ah mid cadow iyo mid kasta oo amni darro keeni kara qof kasta oo khalkhal ku haya amniga inaad soo sheegtaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug waxa ka dhaxeeya iskaashi dhinaca ammaanka waxaana tiro dhowr jeer lagu guuleystay in fal noocan kale xal laga gaaro Xasan Axmed Maxamed Hirshabelle TV Galmudug